waxaan rabaa inaan si gaara hagarlaan uga mahad celiyo inay yihiin dadkii muddana dhib ku soo jiray 30 sano oo dhibka ogeeda hogaamiye kooxeed u geystay oo muxuu ahaa arrimihii markii Etoobiyaanka yimid iyo sidii dadku u barakaceen oo magaalada uga baxeen iyo dagaaladii sokeeyo oo waxaasoo dhan dad runtii adkaystay oo intaasna u taagnaa midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed inay tahay hase yeeshee waxyaalo badan oo waxaa jira dhankii siyaasaddii iyo dhankii amnigii oo aad moodo in la siyaasadeynayo waxaad moodaa in dad shakhsiyaad ay rabaan inay qabiil iyo wax la kiciyo arrimahaas runtii laga soo gudbay muddo marka caqabadahaas oo aan gobollada kale haysanin ayaa hortana haysta gobollada kale markaad fiiriso xasaacadow kaba soo qabo Puntland maamulkii hore waa la bedelay maamul cusub ayaa yimid siyaasadihii hore iyo dadkoodii inta magaalada Garowe tagaan maqashqashaan oo kama wadaan muxuu olole kama wadaan muxuu ahaa dhibaato laakiin halkan waxaa moodaa in nidaam hore oo ku qabso ku qadimaysid iyo qofkii siyaasadda ka degaba uu rabo inuu isaga danihiisa gaarka uu fowdo iyo rabshado ku sameeyo arrimahaas horta magaaladan si gaar runtii uga jira shacabkana aan rabnay inay ogaadaan annaga waxaan rabnaa shacabkeenu waa shacab nabadeed waa shacab aan qabiil aqoonin shacab qabiil ka fog laakiin haddana in shakhsiyaad ay isticmaalaan ereyada noocaas waa nasiib darro ay shakhsiyaadka isticmaalaya oo aad ula jeedid inay magaalada fawdo iyo qabiil ka wadaan runtii markaan kuu sheego waxaan wax muddo soo socday waa soo taray tusaale haddaan ku siiyo xasan sheekh iyo sheekh shariif markay joogeen weli waxaa jira siyaasiyiin careysan oo dhibaato magaaladan ka waday oo u arkaya mucaaradnimadooda iyo inay ama shakhsiyaad qabiil isticmaalaan ama hadda sidoo kale madaxweyne farmaajo joogay madaxweyne farmaajo oo taqaanid oo muddo la soo shaqeeyay markuu ra'iisul wasaare ahaa hadda oo madaxweyne ahaa golihii wasiirada aan ku jiray haddana aan ahay gudoomiyihii gobolka madaxweynuhu waa nin aad iyo aad uga fog qabiilka waa nin shakhsi Soomaaliya oo dhan u siman tahay waa shakhsi waagii 2011kiina shacabkan gobolka Banaadir u soo banbaxeen waa shakhsi 8 Febraayo 2017 markii la doortayna ay dadkoo dhan u soo banbaxeen meel walba ay joogaan haddana in wixii la siyaasadeeyo la dhaho qabiila xanaaqsan oo qabiila kacsan runtii waxaas wax ka jira ma laha waa shakhsiyaad raba inay ku orkacsadaan shacabka waxaan ku cadeynaa ayagu waad leedahay madaxweynayaashii hore waad leedahay waxbay abaabulayaan madaxweynayaashii hore waxaan ku yidhi markii muxuu ahaa ay joogeenba dhibkan waa uu jiray magaaladan Muqdisho haddaan la kala saarin siyaasaddan la siyaasadeynayo amniga la siyaasadeynayo caasimadan horumarkii ay rabtay ma gaarayso hadda waad aragtay muddo 2 usbuuc waxaan ka shaqeynaynaa howlgallada amniga sidii jimcihii aan maaragtay maardoon ugu qabanay magaalada amniga iyo nabadeynta ka jiro waataan xalay ka hadlay haddii siyaasiyiinta oo ay nagala soo qaybgeli lahaa maaratoonka stressna waa ka bixi lahaa fowdadii ka dhacday 7dii muxuu sabtigiina kama dhacdeen golaha shacabka marka anaga waxaan leenahay waxay tahay kow arrintan qabiilka la siyaasadeynayo waa ku celcelinaa xasan arrintan maanta waxaan rabaa inaan si fiican dadka looga garbaxo waxyaalahan taabuuga laga dhigayo wax ka jira ma laha waa shakhsiyaad raba in qabiil lagu orkacsado qabiil mar hore laga gudbay waad ogtahay siyaasiyiin la ogyahay la yaqaano hebel adiga baa u dhihi karta amaanta wuxuu taagay 91kii lagu noqonaa see loogu noqonaa 1991 ninka dhaha waa lagu noqonaa qofkaas qof oo maaragtay ma aha u naxayo shacabka iyo magaalada qof u naxaya dalka ani waxaan qabaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre iyo yariisooba dad runtii arrimo qabiil iyo lagu maaragtay lagu tilmaami karo ama lagu handadi karo midna ma aha arrimahaas mid looga dul qaadan kara ma aha dadka noocaasana maba ahayn inay siyaasadda ku jiraan marka annaga magaaladan aan duq ka ahay magaaladan uma rabo fowdo uma rabo qalalaase qaswadana ma rabo inuu magaaladan uu naga hor istaago horumarka aan rabno waxaan rabnaa magaaladan in maqaamkeedii aan ka tashano magaaladan waxaan rabnaa inay shacabkeedu ay la helaan shacabta kale oo gobolada kale shakhs kastoo Soomaaliyeed muwaadin kastana in uu dalkii horumar gaaray barwaaqa inuu helo ayaa naga go'an taasna waa ka shaqeynaynaa anaga taxiyadan waxay ahayd midda kaliya la rabay inaan ku midowno ummadan cadawgeedu waa al-shabaab shabaab in laga soo wada horjeesto ayay ahayd oo laga wada shaqeeyo laakiin haddii qaraxi dhacaba la siyaasadeeyo haddii ciidamadeennii oo 24 saac shaqeynayo booliisku har iyo habeen taagan meel walba taaganna
taagan muxuu ahaa la dhiirigelin waayo loo tegi waayo haddii la yidhaahdo waxaa laydinka qaadayaa tirakoob iyo waxaa la hubinayaa oo la yidhahdo maya qabiiladii qabiila ka soo baxay aagagii runtii arrimahaas arrimo waxaa la rabaa magaaladan inay sidii ahaan jirtay lagu celiyaa la rabaa taasna midaan uga dul qaadanayno ma aha mid la yeelayana ma aha waxaan rabnaa inaan caddayno waxa kan oo taabuuga qabiilkan la yidhahdo hawiye oo dad sheeganayo runtii shaksiyaad waay qabiil intay isu tegay oo maanta dhahayo annaga aan dowladnimo kasoo horjeedsano mucaarad noqono ma jiro horta taas waa wax cad qabiilka la yidhahdo daarooda ayagana iyo hawiya ishayo waxaas wax ka jira ma leh tusaale waxaa kugu filan madaxweyne farmaajo intii uu joogay dowlad goboleedyada markay ku kacsanaayeen jubbaland iyo puntland ugu darnaa soo ma hadda walow la heshiiyo oo heshiis fiican uu socdo haddana ma aha micnaheed inay qabiil uga soo horjeedeen ma aha inay qabiil ku taageerayeen marka arrimahan oo dhan waa arrimo oo la siyaasadaynayo annaga waxaan rabnaa